السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa khamiis, taariikhduna waa 30 bisha Luulyo sanadka 2026. wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. waxaynu diiradda saari doonaa xaaladda gobolka bariga dhexe. qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa ka mid noqon doona mas-uuliyiin masaariya oo sheegay inay ogaadeen ciddii shalay soo weerartay dekadoodii, halkaasoo nagta looga saaray maraakiib uu lahaa macalinka weyn. haddaba yaa loo haystaa weerarkii shalay? masar yay ogaatay? tafaasiisha warkan cusub waan idiin soo gudbinayaa. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo sheegay mid ka mid ah diyaaradihii saakay soo weeraray ee Mareykanku lahaa inay soo rideen. waxay dhanka kale sheegeen weeraro ay ku qaadeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka qaar ka mid ah. tafaasiisha ay soo saareen ciidankaas waan idiin hayaa. iyo Israa'iil oo Gaza mar kale ka geysatay sida la sheegayo xasuuq cusub. meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa khamiis, taariikhduna waa 30 bisha 7 2026. wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa faahfaahinta ay bixiyeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan dagaalkii xalay ilaa saakay ka dhacay iyaga iyo Mareykanka u dhaxeeya bariga dhexe ka dhacay. haddaba saakay waxaynu soo gudbinay taqriirka ama warbixinta Mareykanka. ciidamada taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM inay dagaalka soo gabagabeeyeen, meelaha ay weerareen, waxa ay sameeyeen. xilligaas waxaan idiin sheegay inuusan soo bixin warka laga sugayo dhanka Iiraan oo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan warkooda. haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war kooban iyaguna soo saaray duhurkii maanta. haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay, ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen Kuwait saakay. waxay soo kale sheegeen inay garaaceen saldhigga Kuwait ku yaala ee la yiraahdo Ali Al Salim, halkaas oo markaa ay ku sugnaayeen ciidamo Mareykan ah. waxay soo kale sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay garaaceen saldhig isagana ku yaalay dalka Urdun oo ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykanka. dhanka kale waxay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay soo rideen diyaarad Dronesa taasoo dul maraysay koonfurta galbeed ee waddankaas. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen waxaynu soo ridnay diyaaradaas oo uu cadowgu lahaa, taasoo dul maraysay magaalada la yiraahdo Bandar Imaam Khomeini, taasoo ku taala dhanka koonfurta galbeed ee waddanka. diyaaradaasna waxaa la soo riday saakay ayaa la soo riday. waaye marka diyaaradda faahfaahin badan lagama bixinin. madiinatu Bandar Khomeini ayaa la yiraahdaa, koonfur galbeed waddankaas ayay ku taallaa meesha magaalada diyaaradda lagu soo riday. waxaana la soo riday aroortii saakay. waxay ka mid ahay diyaaradaasu kuwii Mareykanka ay ku weerarayeen saakay Iiraan. sidaa ogtiin xalay Mareykanku wuxuu dib u bilaabay weeraradii uu ku qaadayay Iiraan 7 in laga joogo meelahaas oo uu hakiyay. haddana xalay ayay bilaabeen. marka iyaguna waxay bilaabeen inay iyaguna garaacaan saldhigyada Mareykanka. laakiin tafaasiil laga qoray dad khubaro ah oo dhanka militariga ah oo la weydiiyey weeraradan maxay kaga duwan yihiin weeraradii 7 ka hor ay labada dhinac isku qaadayeen. waxaa la isku raacsan yahay weeraradanu weeraro waaweyn ma aha weli. waa waxyaabo nin walba meel caadi iska ah, waxyaaba waa la duqeey waxaas waaye. laakiin bahashu weli ma dhanaankii weli lama gaarin. jugta culus weli la iskuma bilaabin. Mareykanku waa soo duulaa xeebaha agtooda meelaha wax ku tuturiyaya war soo saaraa. waa dhamaystirnay weerarka guul oo noogu dhamaaday Trump sheekadaas wadaa.
iiraan iyaduna dhowr gantaale waxay ku ridaa saldhigyadiisa gobolka iyaduna waray soo saartaa sheekadan dhan marka waxay leeyihiin waa wax dagaal maaha waxaan dagaalka runta ah Trump ha bilaabay dheh Trump inta baxo Tahraan dukum daakum ha ka dhigo meel walba oo uu ku hanjabi jiray maaragtay meelaha tareenada meelaha buundooyinka ha burburiya dheh waa kaas dagaal markaasuu mid culus yahay iiraanna markaasi iyaduna waxa haysa firdhinaysaa cid hooyanaysa ma jirto xataa waxay leeyihiin khubaradu Israa'iil xataa markaa meel ku hooyata male waxba la isku reebanayo waa la isbaabeynaya marka inta ka horeysa waxay yiraahdeen aga jugleyn camal wax ahle wax weyn oo hadda Mareykan uu sameeyay ma jiraan ileen aan aragnay dhaheen habeenada soo socda hadduu ka cusleeyo weerarka ballaariyo sidoo mar walba ku hanjabo aan aragno marka hawshu marka taqriirka iyo sida waxa laga yiri iyo weerarkii ugu dambeeyay intaas ay kaga gudbaynaan haddaba sheeka cusuba marka timido cajiiba shalay waxa la weeraray dekad Mediterranean-ka xaggeeda ku taalo oo Masar ay leedahay maraakiib Mareykan ku leeyahay oo kuwa gaaska iyo waxa kan waaweyn oo shirkado Mareykan leeyihiin ku xirnaa laba kamid ah jugta laga geliyay waa slogan intaas oo dhan laakiin waxaan raadinaynay war waxaan yaa ka dambeeyay dad badan oo asxaabtayda wax badan ay soo qoreen qaar waxay yiraahdeen Israa'iil aan u maleynayna qaar waxay yiraahdeen lama yaqaan oo adduunka oo dhan saas u ahaa laakiin sababtoo ah cid sheegatay ma jirin wixii inay la weeraray dekadii daroon lagu weeraray maraakiibtii gubanayso waa la hayaa yaa weeraray marka daroonkan yaa leh waxa leh waa la sheegi waayay marka masaaridii waxay yiraahdeen baaritaan dheer oo macnaha baaritaan qoto dheer aan sameynay yiraahdeen baaritaan oo qoto dheer aan sameynay marka maxaa sameeyeen waxa sameynay leeyihiin inaanu ogaanay cidii ka dambeysay sheekadan haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arinka laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay mas'uuliyiin masaari ah ayaa maanta si rasmi ah waxay u sheegeen inay Iiraan mas'uul ka ahayd weerarkii lagu soo qaaday shalay dekadooda la yiraahdo Damyat haddaba warkan waxay u sheegeen mas'uuliyiinta masaarida journalka la yiraahdo Wall Street Journal ee Mareykanka laga leeyahay mas'uuliyiinta masaarida oo journalka la hadlayay waxay yiraahdeen in marka ay hayaan xogta ku saabsan in Iiraan ay mas'uul ka ahayd weerarkii shalay lagu qaaday dekada la yiraahdo Damyat waxayna ku tilmaameen weerarkaasi masaarida inuu yahay isku day Iiraan ay ku ballaarinayso dagaalka oo jiho walba ay gaarsiinayso mujeda dagaalka waa la ballaarinayaa jiho kasto ayaa la gaarsiinayaa saasay ka wadaa Iiraan ilay marka warka hadda dhow soo baxay Iiraan wali kama jawaabin marka Iiraan way ka soo jawaabi doontaa haddaysan iyadu waxa kan shaqo ku lahayn oo laga been abuurayo waxay dhihi doontaa anagu waxa shaqo kuma leh marka warka hadda ayaa waxa qoraya Wall Street Journal journalka Mareykanka oo mas'uuliyiinta masaarida soo xiganay laakiin mas'uuliyiinta si rasmi ah magacyadooda iyo waxay looma sheegin laakiin journalku wuxuu leeyahay mas'uuliyiin masaariya ayaa ii xaqiijiyay in Masar ay ogaatay in Iiraan ay ka dambeysay weerarkii shalay macalinka weyn maraakiibtiisa nagta looga saaray dekada iyagoo ku sugan marka arintan xataa Trump uu ka hadlay saaki ilaa xalay waqti dambe ma ahayd uu sheegay wuxuu yiri waan ognahay in maraakiibteena la weeraray laakiin waxaan arki doonaa xaalku soo ku soo baxo macnaha laftirkiisa xog ma haynin cid weerartay lama haynin shakiyo badana marka weerarkaas ku gadaaman xaalkaas marka halkaas uu joogaa qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena labaad waxaynu ku soo qaadanaynaa Gaza
gaza waxay u muuqataa in caalamkii oo dhan iska iloobay warbaahintii aada ugama hadlaan wararka waaweyn ee adduunka ma saarna laakiin dadkii waa la laynayaa weli gumaadaa lagu hayaa hadda waxaa la soo saaray maanta xasuuq cusub xalay ilaa saakay israa'iil inay u geysatay reer gaza dadaan waxba galabsan 2 apartmenti ayay duqaysay oo dadkii jiifay ayay ku dishaaleeyay xalay ilaa saakay waxaa ku jira dad kala dilay 2 cunug oo yaryar oo caruur oo midi waliba sanad iyo xoogaa kaliya uu jiro wax wara oo ay ka soo saartay sababta ay u beegsatay dadka masaakiintaana ma jirto dadkii way iska barooranayaan way iska ooynayaan adduunkii oo dhan marka dadka ilaahooda iska qabaan wax hadda oo gooniya oo dadka fiirinaya ma jiraan haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay 6 qof ayaa shahiiday ayay leedahay Al-Jazeera oo ay ku jiraan 2 caruur ah kadib markii Israa'iil weeraro cusub ay ku qaaday gaza ay ku qaaday weeraro cusub haddaba warbixintu way sii socotay warbixin dhanka caafimaadka oo laga helay marinka gaza ayaa sheegay 6 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur yaryar inay halkaasi ku dhinteen waxaa soo kale ku dhaawacmay 10 kale weeraro isxigxigay oo Israa'iil ay ku qaaday koonfurta bartamaha iyo waqooyiga marinka gaza saacadihii ugu dambeeyay xalay ilaa aroortii saakay oo khamiis ahayd ayay weerarada qaabeen haddaba sida ay ku soo waramayso wariyaha telefishinka Al-Jazeera ayaa waxay sheegtay in xalay weerar lagu qaaday deegaano kala duwan oo gaza ah meelaha la weeraray waxaa ku jira shuqaq ama goobo apartment guryo ah oo dad rayda ay deganaayeen oo Israa'iiliyiintu ay iska duqeeyeen marka dadka iyaguna xaaladaasi isaga nooli hal maalin ma faaruqina lagu leeyahay dhowr maalmood ee soo nasanay dad ay ka leynay waa imaanay dad ay ka leynay dagaalkiina waxaa lagu leeyahay uu joogsado xabad joojina jirta wax xabad joojino jira malaha meeshaas waa arkaysa marka xaalkaas isaguna halkaas uu marayaa dadka Falastiiniyiinta dhibaatadaas ay ku jiraan marka kale oo duceynaynaa ilaahay dadka dhibka ka saaro marka xaaladda adduunka oo dhan hadda waxay iska noqotay allow sahal iska noqotay barnaamijkaygii labaad waa naga inta asxaabay fakarkiina iyo aragtidiina waa muhiim noo soo qora like garaya oo share garaya barnaamijka inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo